Burco Balaasa Hospital oo ah isbitaal casri ah ayaa laga daafuray xaafadda Balaasa ee magaalada Burco. Isbitaalkan oo ah mid si casri ah loo qalabeeyay waxaa daafurkiisa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco, dhakhaatiir, marti sharaf iyo sidoo kale dadweynaha xaafaddaasi Balaasa. Dr. Maxamed Yuusuf Jaamac oo ah maamulaha isbitaalkani ayaa ka warbixiyay adeegyada iyo qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay isbitaalkani Balaasa Hospital Burco. waxaanu joognaa xafladda furitaanka isbitaalka Burco Balaasa Hospital oo aanu ka daafurno xaafadda Balaasa ee magaalada Burco oo aanu ugu magac darnay lafteeda xaafadda lafteeda isbitaalka. Isbitaalkan waa isbitaal adeegyo badan bixin doona, waa isbitaal ka yimi baahi aan ku aragnay magaalada Burco, baahi xaafaddu qabto, baahi degmadana qabto intaba ka yimi. maadaama tahay xaafad ka go'an magaalada inteeda kale waxaan ugu talagalnay inaan bulshada gobolka Togdheer ugu adeegno, bulshada xaafadda Balaasa iyo bulshada gobolada bari ee wadada hormarta ay inta badan la cadiban yihiin dadka beeshinka laga soo transfer gareeyo ama miyiga ama gobolada bari oo badan ay gaarsiiyaan Hargeysa. waxaan insha Allah taala ugu talagalnay inaan isbitaalkan noqdo mid isku xidha Burco iyo gobolada bari haddii Ilaahay ka dhigo, mid u adeega degmada Burco, mid u adeega xaafadda uu ku yaalo. isbitaalkan wuxuu bixin doonaa, waxa ka howlgali doona dhakhaatiir ajnabi oo iyagu insha Allah taala inagu soo waadan, iminkana dhakhaatiir Soomaaliya oo dadka degmada Burco u dhashay ayaa ka howlgali doona. xanuunada lagu daweyn doono waxa ka mid ah neerfaha, gynecology baa jooga, waxa jooga internal medicine baa jooga, daaweynta cudurrada guud baa jooga, hooyada iyo dhallaankii baa jooga, daaweynta xanuunada neerfaha ayaa jooga dhakhtarkii. isbitaalkan wuxuu furnaan doonaa 24 saacadood buu furnaan doonaa. adeegii loo baahan waa laga heli doonaa, hadday shaybaar noqoto iyo hadday noqoto daaweynba waa laga heli doonaa. isbitaalkan wuxuu ka kooban yahay 20 sariirood buu ka kooban yahay. iminka intaanu ku bilownay 20 sariirood waxaan ugu talagalnay inaanu bulshada aagan aanu iminka ku sii bilowno adeegeeda insha Allah taala. isbitaalkan waa isbitaal aad aragtaan sida loo qalabeeyay, shay kasta oo yaala waa shay cusub weeyaan. hadday mashiinada tahay, hadday qalabka kala tahay, hadday dawada oo quality-geedu fiican yahay tahay, inta waxaan ugu talagalnay bulshada inaanu ka qabtirno adeega ay u baahan yihiin insha Allah taala. waxaan leeyahay bulshada gobolka Togdheer diyaar baan idinku nahay, saacad walba heegan baan idinku nahay inaanu bulshada u baahan daryeelka caafimaad inaan xarunta ku daryeelno. Barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo, ku-xigeenka duqa degmada Burco Mukhtaar Cabdi Maxamuud, dhakhaatiir, cuqaal iyo bulshada xaafadda Balaasa ayaa soo dhaweeyay isbitaalkan casriga ah, iyagoona tilmaamay inay baahi weyn u qabeen hirgelinta isbitaalkani. waxaan hambalyeeynaa isbitaalka halkan laga furay Burco Balaasa Hospital, ma sha Allah tabaaraka Allah barakeeyo. waa baahi jirtay oo loo baahan yahay. isbitaalkuna runtii waa isbitaal qurux badan oo waxyaabo badan oo fiican ay ka muuqdaan. waxyaabaha aad u muhiimka waxa ka mid ah emergency-ga, qaybta emergency-ga oo diyaar ah. waxay kaloo ka mid ah in 24 saac uu furan yahay. isbitaalkan waan baariganaa, waan barakaynaa, Allah barakeeyo. mid dabiib wanaagsan iyo dawo wanaagsan iyo kalsooniba laga helo Ilaahay ka dhigo. waxaan leeyahay barakallah, Allahu barakeeyaan leeyahay. Maxamed Yuusuf waa nin maskaxdiisu furan tahay sidii hore gobolka. waxaan leeyahay Allah ku barigo, Ilaahay ku barakeeyaan leeyahay. xaafaddan Balaasa iyo gobolka Togdheer oo dhan waa ka faa'iideysan doonaa ma filayaa insha Allah taala. aad iyo aad baanu u baarigaynaa, waanu hambalyeeynaa, waanu bogaadinaynaa. waa adeeg loo baahnaa oo degmadan iyo xaafaddan looga baahnaa. waa adeeg casriya sidaad kamarada iyo shaashadda iminka la duubay aad ku aragteen. meeshu si wanaagsan bay u qalabaysan tahay. aad iyo aadna waxaan ugu hambalyeynayaa Maxamed Yuusuf. aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa Dr. Maxamed Yuusuf. hawl adag buu qabtay oo ah xaafad isbitaalaadka dhan ka fogaayeen ayaa laga furay isbitaalka Burco Balaasa Hospital. waxaana ka faa'iideysan doonaa dhammaan gobolada bariga iyo gobolka Togdheer iyo nawaaxigiisa. isbitaalkan aad baa loogu baahnaa
waxaan ugu baaqayaa gobolka Togdheer inay ka faa'iideystaan الله بركيه عسبتال كان عصب نوفري دكتور محمد يوسف شغالها عسبتال كقيب قلي كاول قلينا وحنا كديريننا يقولون هذان شغاله فن ودتك سود دوية أنا كهذا لي أفكار جديدة حافظة بلاسة رناهانتي وحنوم هذا علينا وبارجيا وهمبلينا برعة بلاسة هوسبيتال وينهر قلي دكتور محمد يوسف رناهانتي دكتور محمد ونقوم هذا علينا حافظنا باهي وين بيوقبتي رناهانتي ونقوم هذا علينا مركي هورنا سوينا له هول قلي ونهر قلي MCH كي حافظة إما كان إنه إسبيتال كنا كانوا أو حافظة وكانوا رناهانتي آيات بنقوم هذا علينا دذلك هاي جهد جاو قليي waxaan ku sugannahay Burco Balaas Hospital halka waxaan ugu hambalyeeynaa Dr. Maxamed Yuusuf oo ku soo kordhiyay dhakhtar loo baahnaa magaalada Burco waliba khaasatan ku soo kordhiyay xaafadda ugu ballaaran magaalada Balaasa halkan markaa aad waxaan ugu faraxsanahay in doctorku gartay gobolkiisa inuu ku soo celiyo aqoontii uu bartay ee uu dibadda kala yimi waxaan leenahay magaalada Burco iyo bulshada Burcaba waa inay ka faa'iideystaan waa inay yimaadaan isbitaalkan Burco Balaasa Hospital waa isbitaal runaantii ay bulshaweynta reer Soomaaliland iyo bulshada Burcaba aad iyo aad ugu baahnaayeen Maxamed Yuusuf Dr. Maxamed Yuusuf waa ku bogaadinaynaa runtii waa bogaadinaynaa Dr. Maxamed Yuusuf Jaamac fikirka wanaagsan ee ku soo kordhiyay gobolka iyo degmadaba aad iyo aad baan runtii uga mahad celinaynaa uguna hambalyeeynaa Burco Balaasa Hospital runtii wanaga indheena ku soo wada aragnay adeegyada iyo sida loo qalabeeyay iyo sida bulshada heeganka loogu yahayba doctorkuna waa ka faahfaahinta dheeraadka waxyaabaha lagu daaweynayo inaga siiyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala doctor marka hore waa kuugu ducaynaynaa cusbitaalka ilaahay ha ku barakeeyo cusbitaalkan ilaahay ha ku barakeeyo marxigtada bulshada ku dhaqan degmada Burco ee cusbitaalkan u adeegi doonana waxaan iyagana ugu bushaareynaa in cusbitaalka cusub ku soo xidhmaan marka hore waan baarigaynaa cusbitaalka runtii waa cusbitaal qalab casriya iyo agab casriya intaba lagu qalabeeyay dhakhaatiir runtii khibrad u leh qaybaha kala duwan ee caafimaadka iyaguna ay diyaar inay ku yihiin waxaan rajaynayaa biidinillaahi alkariim mar kasta oo horumarka gobolka Togdheer iyo degmada Burco ay horumarto ay ballaarato in maxay tahay horumarkuna uu la ballaaranayo hadday noqoto cusbitaalada iyo hadday noqoto qaybaha kala duwan ee horumarka insha Allah waxaan leenahay cusbitaalkani sidii madaxdii ugu horeysay sheegtay wuxuu isku xiri doonaa gobolada bari iyo gobolka Togdheer xaruntiisa Burco waxaan rajaynayaa in adeeg wanaagsan haddii Ilaahay idmo aan ugu soo talagali doono had gaar inoo tahay inaan kala soo qayb galno furitaanka dhammaanteen gobolka Togdheer iyo gobolada bariba waxaan leenahay ku soo dhawaada Burco Balaasa Hospital gabagabadiina gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo maayir ku-xigeenka degmada Burco ayaa si rasmi ah xariga uga jaray isbitaalkani Burco Balaasa Hospital isbitaalka Burco Balaasa Hospital oo ah isbitaal si casri ah loo qalabeeyay ayaa laga heli doonaa dhammaan adeegyada kala duwan ee caafimaad Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi wararka telefishinka Ariel magaalada Burco.